بسم الله الرحمن الرحيم. مدحوينها جمهورية فدرالك الصومالية مدن محمد عبد الله فرماجو قدوميها أقل كسر مدن عبد حاشي عبد الله قدومي كحجين كقولها الشعب كمدن مهد عود مدحوينياش دولتها حمناها كدولة فدرال كجبلان قلمدوك هيرشبيل كونفور قلبيت مدحوينياشي هوري الصومالية مدن الشيخ شريف أحمد يمدن حسن الشيخ محمود رئيس الوزراء هوري الصومالية مدن علي محمد جيدي مدحوينياشي هوري بنتلان مدن عبد الرحمن محمد فرولي دكتور عبد الولي محمد علي قاس مدحويني كوحيجين كبنتلان مدن أحمد علمي عثمان يقدوميها لبديس قدومي كوحيجين يقولها وكيلة بنتلان حمناها قلياشة كلا دولة فدرال حمناها قلياشة كلا حمناها كدولة فدرال حبناها بيش عالم كأي سفارة سياسيين تا وحجرت كإسماء عقاشة هوين كدلنيردا قيبها بلشدة ريد كأ عيد مدى كدوان قلب كسيد بنتلان ورنتي مانتا هلكا sugay ammaanka ummadda intaan la eg ee halka ku naaloonayso sidoo kale waxaan u mahad celinayaa guddigii qabanqaabada ee xafladan quruxda badan soo qabanqaabiyay iyo intii gacanta ka geysatay mudanayaal iyo marwooye waxaan idin ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waxaan sidoo kale dhammaantiin idinka mahad celinayaa soo ajiibista martiqaadka aan idin fidinay sharaf weyn ayay noo tahay in aan dhammaantiin aan garoowe u timaadaan in aad nala qaybsataan inaad la qaybsataan bulshada reer Puntland farxadda iyo dabaaldegga isbeddelka cusub waxaan kale oo farxad gooni ah noo ah inay garoowe caawa kulmisay hogaamiyaashii Soomaalida waxay taasi muujinaysaa xushmadda iyo qadarinta ay Puntland u hayaan Puntland sababihii loo aasaasay ayaa ka mid ahayd xoojinta midnimada ummadda Soomaaliyeed iyo dib u dhiska dawladda Soomaaliyeed oo federaal ah oo dib u soo celisa karaamadii dadka Soomaaliyeed mudanayaal iyo marwooyin waxaan caawa u dabaaldegaynaa isbeddelkii siyaasadeed ee Puntland ka dhacay 8 Janaayo waa doorashadii shanaad oo lix madaxweyne si nabadgelyo ah oo xor oo xalaal ah ay ku kala wareegeen awoodda waxay muujinaysaa bisayl iyo dimuqraadiyad 20 sano ka hor ayay ahayd markii la aasaasay Puntland sida aad la wada socotaan hamigii iyo hanaankii lagu aasaasay waxay ahayd dhisidda nidaam dawladnimo oo u gaar ah deegaanada Puntland iyo raadinta dawlad Soomaaliyeed oo federaal ah marka aan dib u milcdo guulaha la gaaray hamigaas 20 sano kadib waxaa xaqiiq ah in wax badan ay qabsoomeen Puntland waxaa laga yagleelay hay'ado dawladeed maanta leh xafiis bixiya adeegyada bulshada waxaa jira ciidamo heegan u ah sugidda amniga gudaha iyo xuduudaha waxaa jira kaabayaal lagu hirgelinayo dhinaca waxaa la socotaan in Puntland ay ka geysatay kaalin hogaamineed dhismaha dawladda federaalka ah ee hadda jirta waxaan u mahad celinayaa madaxdii naga horreysay